waxaana gacmaha u furaynaa walaalaheena ee Somaliland in ay ku daydaan aabayaashood ee dhaliyay gobonimada aabayaashood midnimada keenay xamarayeenan isku soo rawaayadeen idinkii baa iska dhamaan la idinkii baa isqarxinaya marka tan ku daalina xamarayeenan isku Somaliland baa la leeyahay nagu tawqina aabayaashood oo sharafka Soomaali ay soo martay iyo magaci wanaagsanaa inay ku daydaan waxa yeelay waxa xaqiiqo ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan Soomaalida waqooyi ama Somaliland qayb naga maqan noqoto waa wax ka maqan annaga la nugumada waqti la nugumada oo imkana waa ka sii dartayo way sii adkaatayo mujaahid baa qabsaday wallahi inaanay maamaada shaqeynay qofkuna hal dhinac kama socon karo wuxuu ku dhamaan sariir iyaguna sariir bay ku dhamaan annaguna sariir yaa ku dhamaanayna adduunka waa ka hareena marka inaan fiirno maslaxadda caruurteena iyo mustaqbalkooda inaan fiirno maslaxadda ummadeena iyo caalamka sida uu u dhaqaaqay iyo caalamka sida uu u shaqeeyo iyo wadan walba oo adduunka jira inay nugula dhaqmaan iyagoo midaysan oo aan kala qaybsanayn إذ لبري يعني ما جرتو ورانا وحمر بنا قبسنا ما عنده halkana wallahi halka xafiisku hargeysu noqonaya shirka Afrika lagu qabto war madaxtooyada maxaa Afrika nu qabsannaabay wana Somaliland balana waxaan nolol ma imaado